مؤتمر كان سوق من قابسي كميدا وحو كميدي هاي board member أو قدقة مؤتمر كان يولي بددك حديدة وابو كجرة إن بدن أو مدة سنة كبدنا قبل قابدان يهوشان يولي مؤتمر كان سيدي لو قبل لها مقالة هرقيسة ددك كسو شقي كميدا أيان يلسو دوينيسان إن شاء الله وحنا كو قرين هاي محاضرة لعنوان بحضي وديار قروغا آخره ساد وذا قرنيسان بشيخ وحا وكيمد ملفوك وحكيمد يوكي وانا الشيخ عبد القادر علي عنبي يلسو دوية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلهي ومهد سبحانه وتعالى إلهي سوكا كان إما دشا waxaynu isugu nimi aynu u soo xaydxaydanay aynu guryaheennii danaheennii uga nimina ay tahay inaynu dhegaysanno waxaa ilaahay rasuulkiisana looga sheegaya calayhi salaatu wassalaam marka horta qaata bishaarada nabiga calayhi salaatu wassalaam tibtum wataaba mamshaakum watabawa'tum min aljannati manzila waa wanaagsan tihiin socdaalkiinni iyo tacabkiinnina ilaaha barakeeya subxaana wa tacaala jannadana ilaahay subxaana wa tacaala boosas haydinka siiyo mawduucan u diyaargarowga aakhiro waa mawduucina wada khuseeyo weeye anigagan hadlaya iyo idinkan dhegaysanayaba aakhirana waxay u baahan tahay tacab dadaal bay u baahan tahay آخرنا نمان عمل الله لما أمانين وحلوك لبحي أنا وعمل نول بانا وحلية وحي سميستي إلهينا سبحانه وتعالى إن بضن أيوين وقشيك يا آخر ذا قرآن كما كاتب يقول نقطه واتي مالمها ودنا لوga sheekeynay quraanka iyo akhriskiisa iyo muhaadarada Sheekh Abdul Rashid quraanku inuu noqdo nolosheena ilaahayna wuxuu sheegay aakhiradan aynu ka hadlayno inay dad gaari leeyihiin sifooyin gaarana leh tilka daarul aakhirah wa ta daarta aakhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إلهي وحسيي قليها أن سرين كدونين الدنيا مقع إيا ماموس أن كدونين سرين أن كدونين فسهادنا آن سمينين والعاقبة للمتقين عربت ونكسرنا وحاله ذاتك الله كعبسي قاله ذاتك هي الله كعبسي قاله مركا آخره واتيك أوهي سسلف كي أمدن كسو بلو نبي نسو بنا عليه الصلاة والسلام إلى يقرون تيسي كدن بيسيب وتأديدي إني الدنيا ذا كنت لحتجان وتأديدي الدنيا ذا إني كل يرادان والديار جروجا آخره إني آخره والديار جروبان قفكنا وحل الدونية قف البو إن جمدي إن أحيد حيته آخره
saddex inoo salafkii ka mida ayaa waxaa way wada hadleen. markay wada hadleen ayaa nin walba waxa yidhi nin walba warran aakhiro maxaad ugu tala gashay, maxaad u diyaarsatay? wuxuu yidhi mid markuu sanad idhaafaba aad baan uga warwaraa buu yidhi. aad ayaan uga warwaraa, waa sanad. wallahi waxaa tabeelaya nin yahow nin adduunyada isa siiyey. war ninka labaad bal adna warran. anna wuxuu yidhi jimco waliba markuu idhaafo, yani wiig markuu idhaafo ayaan ka warwaraa buu yidhi. kii labaadna waxa la yidhi wallahi nin adduunyaa tahay, nin adduunyo haddaadba wiig dhan ku xisaabtamayso nin adduunyaa tahay. ninka saddexaadna wuxuu yidhi anigu haddii aan salaad tukado kuma tala galo inaan salaadda dambe gaari doono. haddii aan salaad tukado waa salaad. bal ka warran markaynu imika duhurka tukanayno oo aad niyadda geliso salaadi kaagama dambayso, sidaad u tukanaysaa salaaddaa? dhadhan iyo macnay kuu samaynaysaa. dhadhan iyo macne ayay kuu samaynaysaa. saasay ahaayeen ragga aynu doonayno inaynu hiigsanno, ragga aynu ku hamiyeyno inaynu gaadhno. sidaasay ahaan jireen marka aakhiro laga hadlayo. nabigeena suubanaa calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu garabka qabtay cabdullaahi ibni cumar walxadiidu fi saxiixayn. markaasuu nabigu ku yidhi yaa cabdallaah, cabdillaahiyow kun fi dunya kaannaka gariib. adduunyadan waxaad u dhaqantaa sidii nin qariib ah. aw caabiri sabiil, ama nin musaafira. ninka magaalada qariibka ku ahay wuu isbarbariyaa. sahay yaroo wuxuu sitaa ku filan, iskuma daya inuu isballaadhiyo. caabiru sabiil, qofka musaafirka ahayna waa sidaas si leeg. wax yaroo fudud baad qaadanaysaa markaad iminka magaalo kala tegayso. dharkaago dhan qaadan maysid. dukaanka guriga kuu yaalla, berigii hore dumarkaa dukaanna guriga u ooli jireen, lakin imanka raggii baa barabixiyey. oo nin walba waxa u yaalla 20 toob, intaasoo maxay, intaasoo khamiis, intaasoo shaadh, intaasoo surwaal, intaasoo kaba'a, intaasoo. nin wadaadadeenna ka mida ayaa waa raggan tviyada barnaamijyadooda ku jira. markaasaa islaam baa waxay tirisay saacadaha uu xidhan yahay. ay tiri 20 saacadood oo kala duwan baan ka tiriyay bay tiri saacadahaaga. marka dukaanku berigii hore qolo gaaru ayaa lahaan jirtee qolyaa xagga dambe fadhiye. imika wax mudan inagu inaynu bara dhaafinay. dukaankaago dhan wada qaadan mayside 2 shay iyo shay ayaad qaadanaysaa markaad musaafirka tahay. oo intaad tagto aad ku soo noqoto. cabdullaahi ibni cumar
markuu nebigu dardaarankaa uu siiyey calayhi salaatu wassalaam isna kelimad dardaaran oo cajiiba ayuu inooga tegey ilaahay ha ka raali noqdee wuxuu yidhi idaa asbaxta haddii aad waabariisato oo ilaahay ku soo toosiyo subaxdii falaa tantadir ilmasaa galabta ha sugin wa idaa amsayta haddii aad galbatana oo ilaahay uu ku soo gaadhsiiyo galabtiina falaa tantadir الصabaax subaxa dambe ha sugin subaxa dambe ha sugin inaad gaari doonto ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala imisaynu goobjoog u soo ahayn sidaa imarkanu halkan uga baxay oo kale la yidhi hebel dhimay ama heblaaya dhimatay waxaan goobjoog u ahaa london inaannu oday aasaynay laba ninoo isu abtiya ayaa wuxuu arkay abtigiioo ku dul kaftamaya xabaalaha markaasuu wuxuu ku yidhi abti xabaal baynu joognaaye jooji kaftanka jooji kaftanka ayuu ku yidhi xabaashii baanu ka soo noqonnay intaanaan xaafadaha yagii gaadhin ayaana lagu yidhi ninkii hebel ee xabaasha ku dul kaftamayey ee abtigii uu ku yidhi abti xabaasha dusheeda laguma kaftamee jooji kaftanka waa mayd naftii baa ka baxday gaadhina muu jiidhin balaayo kalena kumay dhicin laakiin way kaa dhammaatay un baa la yidhi marka nin aan bal qof ka waran wakhtigiisa isagoo aan gacantiisa ku haysanin oo haddana warwar aanu ku haynin miyaana mushkilad ahayn wakhtigayga iyo wakhtigaaga gacanta kuma haysanno haddana diyaar garow inagama muuqdo xasan albasri oo nin aanu xikmad badnaya waxaa laga hayay yaa cabdallah addoonkii allow inamaa anta ayaam waxaad ka samaysan tahayba waa maalmo iyo saacado faidaa dahaba yowmuk haddii ay maalin kaa tagto dahaba bacduk qayb adiga kaa mida ayaa socotay qayb adiga kaa mida ayaa socotay waynu jeclaysanaynaa habeenada iyo maalinta soconaya dhalinyaradu way jeclaysanaysaa inay weynaato inkastoo odayaashu ay ka xanaaqaan bada'da odayaashuna raalli hayga ahaadaan dumarka iyaga hadalkooda badda laakiin mar kastoo maalin ay ku dhaafto oo sanad ku dhaafo xabaashii baad u sii dhowaatay laakiin sidaa ma u aragnaa waa su'aal la doonaynu isweydiinno sidaa ma u aragnaa markaan maanta kontonkii gaadhay ma isleeyahy war waxaa kuu dhiman wax badan maaha mise waxaan leeyahay wakhti dheer baa kuu hadhaya sheekhow wax tabco oo carruurta wax u tacab oo carruurta wax u reeb oo carruurta wax u samee oo waa madaakhisha shaydaanka laakiin haddaynu nahay sidii cumar bin cabdilcasiis oo kale markii la yidhi carruurtaada wax u dardaaran isagu adduun muu haysanin waa khaliifadii muslimiinta waa madaxweynihii ummadda laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah madaxweynaheedii weeye wax u dardaaran baa la yidhi carruurtaada waxba ma haystaane markaasuu wuxuu yidhi carruurtaydu laba mid bay noqon rajulun saalix nin wanaagsan
طريق إلهي هيسته والله يتولى أمر الصالحين إلهي بانا أرنتي استكفالة قاتيكا ونن وناكسن وصالحة إلهي بأرميستك عنتك وحي وإما طالح أما مدحنا فاسقة أيو النقل كان والله إن أنا كعاون نبوي الحمانتيس كين يبقى سيد على هالدبا ولا أوبت كيجا هذي وناكسن هذا أنا إلهي بتلو ذاك عنتك وحي هذي حماضة أنا دي ما بقى إن كعاوية حمانت إيه همدي صاي آخرتها الدنيا ذا وحو هايستنا آخرة قلية آخرة شقة يوبا كل جنون وذا دمانا إنا قف إنا جمدا إنتي لن هرفر دي إنت كمرضاه هنا قد دعوانا إسا إنت عالم كتشوكت قال إيه مسلم بقى قف آن آمن سنين إنانو دمانين مجرو قال كان ليهضو ستيفن كم إذا قال ذن ملحدين تواوين كان بريتشوغ أي شيخنا أي دودي الأحمرتي المدينة كم إذا ما كسبوا حكولة الدنيا ذو محي معنى الله ذا وضلتي وتعبتي وشقيسي حول بدن بد أرورسي وادمتي مركزوا آمسي مركزوا الدنيا ذو ومين اللس وحم معنا آبا ماله هذا بتشوك بويل هالكا كتشوش أنا جمعنا اللون لا ذا هذا هذيك معنا كولا هين أنا جمعنا نول لا ذا لمشى ذا يدا نولش يدا نولش ذا يدا كوبا يدا حولها يدا كسب شذا يدا وحي يدا أنا معنى نول لا ذا وايو وحكدم بيسبوا يدي نول كله أنتنا هين oo aakhira la yiraahdo science kan aad culimada caalimka ku tahayna aanu ku sheegaynin kutubta waxyiga ayaa laga bartaa buu ninkan idin sheegay oo nadariyaad leh oo caana waa ninka yiraahdaan hadii adduunku dhan kafad la saaro isagana kafad la saaro isaga ka qiimo badan bay yiraahdaan haddana garan maayo wuxuu u nool yahay garan maayo wuxuu u nool yahay aakhiro waa wax ugu muhiimsan ee qofku la doonayo inuu u shaqaysto kulligeena wada dhimanaynaa ilaahayna wuxuu yidhi kullu nafsin dhaa'iqatul mawt naf waliba way dhimanaysaa naf aan dhadhaminaynin dhimashada ma jirto naf buu ilaahay ku tilmaamay macnaheedu waa maxay waa noole oo dhan xasharaadka ka soo bilow bani aadanka xayawaanaadka xoogga waaweyn wax waliba way dhimanayaan laakiin qolada ilaahay xil ma saarin ilaahay xil ma saarin innagasta bani aadan xil buu ilaahayna saaray subxaanahu wa tacaala wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama wixiinnii oo dhan waxaa laydin siinayaa oon waxba idinka naaqus ahayn oo dhammaystiran maalinta yowma alqiyaame
faman zuxziha can innaar qofka naarta laga koriyo naarta laga leexiyo wa udkhila aljanna ee jannada la geliyo faqad faaz wuu liibaanay wuu guulaystay guushii dhabta ahayd waa guul aan wakhti lahayn unlimited ah wama alxayaatu addunya ila mataacu alguruur lakiin noloshan adduunyo waa dhalanteed bal ka waran marka haddaynu ku aragno ishaa ilaahay adduunyada haddaynu ku eegno ma macna inoo samayn lahayd miyaynu ku mashquuli lahayn miyaynu wakhtigaynu dhan gelin lahayn may wakhtigayna waxaynu gelin lahayn aakhiro u shaqaysigii in yarna waxaynu gelin lahayn adduunyadeenna ilahay muxuu yidhi isagoo ka hadlaya qaaruun wabtagi fima aataaka allahu daara alaakhira wabtagi fima aataaka allahu daara alaakhira wuxuu ilaahay ku siiyey aakhiro la doono wainama walaa tansa nasiibaka min addunya laakiin nasiibkaaga adduunyana ha ilaawin gacan bani aadan ka kaaftoon ilaahay isku xidh subxaanahu wa tacaala ha ku talax tegin dhaldhalaalka adduunya yaanu ku luminin yaanu ku majara habaabinin walaa tansa nasiibaka min addunya baa le ina nimka maxaynu samaynaa wakhtigeenna intiisa badan adduunyaa leh waynu xiiqsannahay wadaad iyo waranleba waynu xiiqsannay wuu seexanayaa isagoo tacbaana haddana subaxdii buu toosayaa iminkana adduunku waaba ka noqday qolkan yar xagganuu la xidhiidhaya xagganuu la xidhiidhaya xaggan waxaa kala dabaraya xaggan waxaa kala dabaraya sakda dhexuu toosaya maskaxdii waxay ku mashquulsan tahay transactionadii iyo wixii uu ka fekerayey hadduu salaada haleelo ayuu ku bura sidaa salaadda hadduu haleelo ayuu ku bura sidaa salaaddu aynu garanayno halkuu nabigeenu dhigay calayhi الsalaatu wasalaam kelimadihii u dambeeyey markii uu dhimanayay subanuhu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa asalaatu الsalaa war salaadda ilaaliya war salaadda ilaaliya wamaa malakat aymaanukum iyo waxa ilaahay uu gacantiina geliyey asalaatu الsalaa war salaadda salaadda cumar bn khaaab ardaygii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam markii la dooxay ee abu lu'ata almajuusi uu dooxay isagoo salaaddii subax ku jira oo akhriyay suuratu yuusuf markuu marayay inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah wa aclamu min allahi ma laa taclamuun kelimaddii yacquub inamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah waxaan u ashkatoonayaa oon u bandhiganayaa murugadayda iyo dhibaatada ay haysata ilaahay subxaanahu wa tacaala wa aclamu min allahi ma laa taclamuun ilaahayna waxaan ka garanaya waxaydan ka garanaynin idinku ee uu aayaddii dhaafin kari waa isagoo ooyayo ku celcelinaya aayaddii oo ilmadu ay ka daadanayso ayaa la tooriyey markiiba cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa markiiba booskii galay salaaddii dhammaystiray waa la qaaday cumar ibn khaaab gurigii baa la geeyey markii gurigiisii la geeyey
ayay kala garan waayeen inuu go'ay iyo inaanu go'in qalabkan aynu haysanay iyo waxaanu haysanana may jirin ee lagu eegayo wadnaha garaaciisa iyo wixiisa maxay yidhaahdeen markaa salaadda aynu ka hadalla bay yidhaahdeen haddaynu salaadda ka hadallo oo uu nool yahay wuu soo boodayaa salaaddii bay ka hadleen الصلاة wuu soo booday salaaddii ma la tukaday buu yidhi haa baa ya amiir almu'miniin waa la tukaday waa la tukaday waa dad sidaa qalbigooda ugu xidhan yahay salaadda ragga aynu hiigsanayno waa raggaa weeye cadiy ibni xaatim الطائي wuxuu yidhi tan iyo maalintii aan islaamay ilaa iyo maanta markuu u sheegayay ardaydiisii ilaa iyo maanta may dhicin buu yidhi in masaajidka anoo ku dhex jira la eedaamo mooyaane may dhicin buu yidhi may dhicin abadan anoo masaajid ku dhex jira mooyaane سعيد بن المسيب wuxuu yidhi 40 sannadood salaad laygama horgelin 40 sannadood lama arag baa la yidhi iyadoo la eedaamay سعيد wejigiisa inaad xaggiisa dambe ka aragta mooyaane 40 sannadood ma shaydaan buu ahaa miyaanu xanuunsanin way xanuunsan jireen laakiin may aqbali jirin isagoo xanuunsan inuu guriga ku tukado oo dumarkii carruurta ula tukado may aqbali jirin kaana yu'taa birajuli yuhaadaa bayna arajulayn asxaabtii baa leh ninku isagoo garbaha lahayo laba nin ay garbaha hayaan ayay masaajidka keeni jireen jamaca istaajin jireen ama ay fadhiisan jireen isagoo xanuunsanaya isagoo ilaahay u cudur daaray subxaana wa tacaala haddana ruqsaddaa may qaadan jirin saasuu u leeyahay 40 sannadood salaad laygama horgelin acmash sulaymaan ibnu mihraan taabicigii yaraa maalintii sakaraatulmowtkiisii inankiisii baa ooyey inankiisii curad ayaa ooyey muxuu ku yidhi inankaygiiyow ama oy ama ha ooyin wallaahi ilaaha naftayda abuuray baan ku dhaartaye 60 sannadood salaad laygama horgelin 60 sannadood salaad laygama horgelin waa 60 sannadood salaad laygama horgelin waa dad aakhiro u diyaar garoobayo aakhiro ay ka dhab ahayd waa raggii yidhi markuu xandale uu u yimi abubakar isagoo ilmaynaya war maxaa kugu dhacay yidhi naafaqa xandala munaafiq buu noqday war maxaa jiro maxaad sheegaysa wuxuu yidhi markaan nebiga la joogno calayhi الsalaatu wasalaam ee aanu nebiga hor fadhina calayhi الsalaatu wasalaam waxaanu aragnaa jannadii iyo naartii oo hortayada taagan jannadii iyo naartii ayaa hortayada timaadda sidii hortayada aanu arkayno markaanu noqonno eenu guryihii ku noqono xaafadihii ku noqonno ee aanu dumarkii iyo carruurtii iyo xoolihii iyo adduunyadii aanu dhex galno waanu isbedelnaa buu yidhi waanu isbedelnaa abubakar muxuu ku jawaabay war taasi wayna wada haysataaye bal inakee nebiga u wada tagnaya buu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xaaladdan aad ka hadlaysaa wayna wada haysataa
nebigay u wada tageen calayhi salaatu wasalaam markaasuu intii u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam naafaqa xandala yaa rasuula allah xandala munaafiq buu noqday markaan ku ag joognana xaaladda iyadu waa sidan markaanu guryihii reeri ku noqnay carruurtii wixii dumarkii wixii adduunyada aanu dhex galnana waanu isbedelnaa nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa xandalatu saacatan saaca yaa xandalatu saacatan saaca saacadna dikriga ilaahay iyo cibaadada iyo khayrka saacadna xoogsiga iyo carruurta iyo dumarka muxuu u raaciyey marka calayhi salaatu wasalaam wallahi haddaad ahaanaysaan sida aad tihiin marka ila joogtaan haddaad ahaanaysaan lasaafaxatkum almalaa'ikatu fi turuqaat malaa'igta ayaad ku salaami lahayd dariiqyada asalaamu calaykum saxaabiga wajhu cibaadat ibnu saamit dadka la jooga waxay ku leeyihiin saanu u joogno baan maqlaa isagoo le wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waxbana ma aragna bay yidhahdeen annagu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu raggaasa adduunkan soo maray oo haamadooda ay aakhiro ahayd oo haamadooda ay aakhiro ahayd kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kastaa way dhimanaysaa maxaynu u diyaarsannay geerida maxaynu ugu tala gallay sakaraatulmowtka imaam alqurطubi wuxuu yidhi wuu ka xanuun kulul yahay buu yidhi 1000 darbadood oo seefood oo mar qura jidhkaaga ku wada kulantay bal ka warran imaajin garee bal maskaxdaada ku celceli 1000 darbadood oo seefood oo mar qura jidhkaaga ku wada kulantay taana waxaa kuugu filan nebigaagii calayhi salaatu wasalaam sakaraatulmowtkii uu maray وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت حقها بايمي نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح محور انشري إن للموت لسكرات الله سكرات الموت كحنون كل الله والحديث عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود نبي قوس قال عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت وقصوا مدحي ستابتي وقصوا يا رسول الله رسولك إله يو إنك توعك وعكا شديدا حمد إي حنون آد أكلل أيا كادولا يوكو هيا إني أوعك كما يوعك رجلان منكم بويل عليه الصلاة والسلام سكرات الموت كإي هيا وكحنون كلها سكرات الموت لبن نين أو إذن كإذن كمد وخير خلق الله فداه أبي وأمي أباها يهو يدما كفرا لها تاسون مري أنا يأذيكم حين كنت لقلي ولا دمنا إياه نفو لبنا ويدمنا إيساه waanad wada garanaysaan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheegay qabrigan yar ee madow waa kii ka oohiyey suubanihii calayhi salaatu wasalaam والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أيضا لمشهد الصحابي لو عبد الله ذو البجادين iyagoo safar ku jiray dhinteen ayuu dhintay saxaabigaasi wuxuu yidhi nebigii baa soo kacay nebigii iyo abubakar iyo cumar
ayaa diyaarinayay buu janaasadiisii mar dambaan soo toosay buu yidhi furaashkii nebigaan taabtay mise wuu qabow yahay ma joogo kii abubakar sidaasi leeg kii cumar sidaasi leeg talow xagii qabtay maan sidhi buu yidhi saxaabadiina waa la wada jiifaa waa la wada hurdaa wuxuu yidhi waan baadi doonayoo laydh baan iftiin baan ka arkay meel halkaasa iftiinkii baan tegey buu yidhi waaba nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar iyo qabri qodan iyo janaaso dhex taalla janaaso qabrigii dhinac taalla markaasaan idhi yaa rasuul allah janaasatu man haadihi nebigii wuxuu yidhi hadi janaasatu akhiika cabdillaahi dulbajaadayn waa janaasadii walaalka cabdullaahi dulbajaadayn ninkii la odhan jiray oo go'ay intii la jiifay nebigu uu ku dhaadhacay qabrigii abubakar iyo cumar buu ku yidhi adliyaali saaxibakumaa ii soo dhiiba saaxiibkiin way u dhiibeen markuu sidaa u dhigay qabrigii ayuu wuxuu yidhi ayuu ilmeeyey suubanuhu calayhi الsalaatu wasalaam ilma dhagac ka soo tidhi markaasuu wuxuu ina lilqabri damma qabrigu qabashuu leeyahay low yanjuu minha axad hadday cidi ka badbaadayso lanajaa minha sacd ibnu mucaad saxaabigii carshiga ilaahay u gariiray ayaa ka badbaadi hadday cidi ka badbaadayso lakin cid ka badbaadaysaa ma jirto yaa allah ducuu xagga alle ula dhaqaaqay allahuma inii amsaytu canhu raad farda canhu ilaahayow galabta wuxuu galbaday anigoo ka raalli ah ilaahayow ka raalli noqo ilaahayow ka raalli noqo cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi waxaan tamaniyey buu yidhi inuu isna halkayga ku jiro oo halkayga taagnaado caafimaad qabo digdig leeyahay anna aan halkiisa ku jiro oo ducadaas anigu aan helo ayaan tamaniyey buu yidhi waa ducadii nebiga weeye calayhi الsalaatu wassalaam qabrigaas waa kaasuu banihii ka ooyay calayhi الsalaatu wassalaam cuثmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waardaah markaa qubuuraha la yimaado ayay intay ilmadu ay qoyso la qaadi jiray sidii inuu meyd yahay oo gurigiisa la geyn jiray maxaa dhacay baa la yidhi jannada iyo naarta iyo marka laga hadlayo sidan uma oydido sidan uma miyir beeshida maxay ku dhacday waar maydaan garanayn buu yidhi inuu qabrigu yahay awal manzil min manaazil alaakhira halka u horraysay aakhiro inuu yahay maydaan ogeyn in yaku khayran faaladii min bacdihi khayru min cindi rabbina licabdihi hadduu khayr yahay wixii ka dambeeyaana waa khayr hadduu shar kugu noqdo iilkaa yarina wixii ka dambeeyaaba waa shar su'aalaha xadiidka dheeraayee xadiid bara ibni caazib fii muslim imaam axmed wajuz minhu fii saxiix muslim nebigu muxuu inoogu sheegay alayh isalaatu wasalaam war dheer buu inoogu sheegay markii janaaso nin reer ansaarada ay soo raaceen qabrigu inuu kala duwan yahay waxaa kala duwayna inaanay ahayn laandheerannimo iyo reerkiiga reeraha kale geela ka qaadi jiray inaanay ahayn iyo annagaa salaadiintiiya annagaa cuqaashiiya annagaa ugaasyadiiya annagaa malaaqyadiiya annagaa isimadiiya annagaa sidana annagaa habboon annaga waxaasoo dhammi
ka kacbay noqonayaan. halkaa waxa kaa anfacaya waa camalkaaga. camalkaagaana kuu imanayu nabigu inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam. hadduu wanaagsanaana isagoo wanaagsan buu ku imanaya qurux badan. ilaahay baynu ka magan gallay subxaanahu wa tacaala ta kale. markaasuu kula hadlayaa camalkaagiiyo qof ah. markaasuu odhanaya wehel baan kuu noqonaya, wehel baanan kuu ahaanaya, kaamana tegayo ilaa iyo aan kugu hubsado halkii ilahay kuugu tala galay subxaanahu wa tacaala. haddii kalena camalkaagii xumaa baa kuu imanaya oo shar iyo qudhmuun kuula imanaya, aduu markaaga rabo taag daraayo u taag la'a xaaladaada. waayo nabigu muxuu inoo shegay alay isalaatu wasalaam, waynu soo koobkoobaynaaye xadiisku aad buu u dheer yahay, in marka su'aalaha la isweydiiyo qofka mu'minka ah marka lagu sugo su'aalaha inay ili aragto loo ballaadhinayo qabriga, oo daaqad jannada looga furayo, oo loodhanayo halkaasaad gelaysaaye sug, oo camalkiisii wanaagsanaayo qofkii uu imanayo, oo odhanayo camalkaagii wanaagsanaa baan ahay, ana camaluka asaalix. maxaad ahayd buu odhanaya mid wejigiisu khayr iyo bishaaro iyo wanaag sidaa tahay, maxaad ahayd? ana camaluka asaalix buu ku odhanaya, camalkaagii wanaagsanaa baan ahay. kan kalena ilahay baan ka magan galay subxana wa tacala, marka su'aalaha la weydiiyo ilaahay, rasuulkiisa, diintiisa, haa laa adri buu odhanaya, garan maayoy garan maayoy. laa darayta walaa talayta ayay ku odhanayaan munkar iyo nakiir. markaasay ku dhufanayaan, dhulkuu hoos u gelaya 7. miyaa lagu daynayaa sidaa? haddii darbadda sun lagu daynaya saleelay ahaan lahayd, waa la soo fujinayaa. markaasaa qabriga lagu cidhiidhiyaya, isagoo markiisu horeba cidhiidhi ahaa, ilaa ay feedhihiisu isdhaafaan ayaa qabriga lagu cidhiidhiyaya. markaasa daaqad naarta looga furaya, halkaasaad gelaysaa baa la odhanaya sug inta qiyaamaha laga gaadhayo. labadu way ducaysanayaan, laakiin duca ka duwan. ka horna muxuu ku ducaysanayaa rabbi aqim isaaca, waayo halkuu gelaya u ogyahay ka khayr badan tahay halkanuu ku jira maanta, iyadoo udgoonkii jannada iyo ruuxeedii iyo rayxaanteedii wax walba ay uga imanayaan halkaa. haddana wuxuu og yahay ta sugaysa inay ka wanaagsan tahay. kan kalena ilaahayow qiyaamaha oogin buu odhanaya, ilaahayow qiyaamaha oogin, ilaahayow qiyaamaha oogin. waayo feedhahan lagu cidhiidhiyey camalkiisan xune qurmuune u yimi ee dheegga u saaray, ee uu yidhi war maxaad ahayd adiguna balaayo kalaa tahaye, maxaad ahayd? odhanaya anu camalkaagii xumaa baan ahay. kaasina wuu la joogaya, naftu ay qabanaysaa, laakiin wuxuu og yahay tan uu ku jiraa inay salleelle tahay markuu ta sugaysa, markuu arko, markuu eego. ilahay subxana wa tacala khayr ha ka dhigo. waxaa lagu kala baxayaana waa camal. waxaa lagu kala baxayaa waa camal. ilahay khayrka hayna waafajiyo, ilahay toosana haynagu toosiyo, ilahay wanaagga dariiqiisana hayna waafajiyo. muxaadaro intaa way ka dheerayd, laakiin intii markii hore la ii sheegay en ku tala galay waa la isaga daba yimi. marka ilaahay wakti kale iyo bara kale iyo kulan kale allah isuu keen keeno. wajazaakum allahu khayran, wasala allah waslam ala nabiyina maxamed saxbi wasalam. ina mursal baa idaba taagane.